waxaaba suuragal ah dad waaweyn oo reer leh ayaa waxa laga yaabaa zinadii faaxishada inay ku dhacdo maaha wax la iska sheegay waxyaabo waaqic oo dhaca waay nin sheekha wuxuu yiri hadda ka hor waxa mas'ale i weydiiyay gabar waxay ugu tiri reer baan lahaa caruura ii joogtay odaygii baa guriga wuxuu keenay macallin rag nin ah guriga gudihiisa markaasoo qol guriga ka siiyay oo leeyahay ilmaha quraanka iyo ragga qaarna hadda muqafaliin waay guriga gudihiisa qol ka siiyay ilmaha waxay ugu dhigaya macallin caamaduna hadda ma dareensan waxyaabahaas qaarkood wuxuu ku leeyahay macallinku wuxuu haystaa inuu malaa'ig yahay macallinkii ilmihii quraanka u dhigaa aabihii waa iska maqan yahay ganacsi wuxuu aadaa shaqo aadaa hooyadii macallinkii gabadhii macallinkii waa la sheekaystay ugu dambeyntii waxay tiri wiil gabadhii waxaan ku dhacnay zinadii kadib waxay tiri arrintii waa sii wadnay odagina ma dareensana hadda subaxdii u baxa habeenkii buu soo hoyaadaa maalinkoo dhanna macallinkaas guriga jooga faajirka dhowr markii wuxuu yiri arrintaas waxay tiri arrintaas ay dhacday waxaan ku ballanay bay tiri anigii asiga inaan isku harno ninkiina aan khadka ka saaro ninkii qabay inay iska furto oo ninkan ay u dambayso adu waxay tiri kadib muxaawalan sameeyay isku day uma hirgelin inuu ninkii furo qabay kadib waxay tiri dibaan ka baraarugay ilaahay baan u toobad keenay ninkii macallinka ahaana waa isku dhacnayo gurigii waa laga eriyay laakiin su'aasheedu waxa waaye bay tiri maxaan sameeyaa aniga nafteedu waan u toobad keenay ninkii haddaan u sheegana dhibaato iyo fidno weyn aan ka baqay kii qabay haddii arrinta ogeysiiso haddii aan ka qariyana waxay tiri aakhiran u baqaya xumaantiina waa ku dhacay yani aad uga shalaysan tahay wixii dhacay waxa sharcigu u diidaya khalwada oo nabigu u leeyahay sallallahu alayhi wasallam la yakhluwanna rajulun bimra'atin waxyaabaha laga cararay fidnadan oo kala way nin ajnabiya iyo naag ajnabiya yeysan isla gaar noqon nabigu waa reebay sallallahu alayhi wasallam maxaa yeelay waxa laga cararaya fidnadan zinada iyo faaxi aniga waan fiicanahay wadaadaan ahay waxa ma jiraan sheekh hadaad wadaad tahay ka carar shubhada iyo fidnada oo ay dhabka tahay diinka aad sheeganayso haddii marka gabadha ayadoo reer leh shaydaan sidaas ugu taraarixinayo xumaantii maxaad u maleynaysaa oo wiil dhalinyaro la gaar noqotay fidnada aad uga weyn tahay musiibo kugu dhacdana waxa ugu weyn musiibada diinkaaga ku dhacdo musiibo ka weyn ma jiro walidaalka nabigu wuxuu ku ducaysan jiray sallallahu alayhi wasallam wala tajcal musiibatana fi diinina ilaahu musiibadeena hayeelin diinkeena dhexdiisa diinkeena ilaahu musiibaha nooga asiibin waa duca cadiima inaad ku ducaysato ilaahay inuu diinka ka fidnay oo diinkaaga ilaahay kuu dhowro oo macsiyo ilaahay ka ilaaliyo subhanahu wa ta'ala waxa suuragal adigoo maanta hanuunsan inaad birri fidnowdo imisa dad fiicna gadal ka fasahaade meeqa dad muslimiin ah gadal ka gaaloobay meeqa kuba gaala soo islaamay hidaayadu waa biyadillah alqulubu bayna isbu'ayn min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha qulubtu waxay u dhaxaysaa laba isbuuc ama laba farood oo asaabicda ilaahay kamid allah sidoo doono qulubtu u rogroga subhanahu wa ta'ala nabiguna wuxuu ku ducaysan jiray ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala diinik allah qulubta rogrogo qalbigeena ku sug diinkaaga waa min akthari du'aa'i nabiy sallallahu alayhi wasallam ducooyinka nabiga ugu badnaa ayay ducadaani kamid ahay ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala diinik marka ina ilaahay sabaad la weydiisto diinkaaga ilaahay kuwa xafido subhanahu wa ta'ala mar walba inaan ku ducaysanan u baahana hadda ka hor waxaan u maleynaa inaan sheegnay qisadii ninkii mu'adinka ahaa 40 sano muddo 40 sano ah ayuu masaajid mu'adinka ahaa waa waqti aad u dheer markii dambana gaalnimo ku dhintay ninkii mu'adinka 40 sano ahaa gaalnimo ku dhintay iyaadan billah waxa la yiri minaaradu kori jiray oo ka adimi jiray asoo minaaradii ka adimayo maalinkii dambe 40 sano kadib asoo mu'adina waa nin odaya dabcan 40 sano mu'adina waa nin oday ah ayuu guri masaajidka ka aga dhawaa daaradiisa ayaa ishiisa ku dhacday wuxuu arkay gabar qurxoon oo nasraaniyad ah gabadh nasraaniyad waa gaalad kaafirad oo guriga ku sugan ishiisa gabadhii markay ku dhacday ishi qalbigay u gudbisay macna gabadhii buu jeclaaday waa soo dagay gurigii u gargaraacay cidii si gabadhii uu la kulmo ilaa qalbigiisa waxa galay shaydaankii ka qaalib noqday gabadhii ninkii way soo dhaweysay ilaa inay fidnaysay rabtaa markii dambe waxay tiri anigii adiga inaan isfahamno waxay kaaga xiran tahay inaad diinkayga soo qaadato oo soo raacdo maxaa yeelay adiga muslim baa tahay anigana nasraaniyad baan ah isku diin aan noqono marka hore ninkii gabadha darteed ayuu u fidnoobay diintii nasaarada ayuu qaatay muddo yar markuu yaani laga joogo markuu diinta nasaarada galay wax yar kadib waa dhintay muxuu ku dhintay ninkaasi cala nasraaniya cala al-kufri gaalnimo ku dhintay 40 sanana mu'adin oo ahaa mu'adin waa dareemi kartaan waa nin safka horumar walba ku tukanaya maxaa yeelay shanta salaadood oo adimaya Soomaa waa qofka masaajidka ugu badan waa arrin cibra ay noogu sugantaa waxyaabaha marka qofka fidneeya dumarku waa ka qayb waxaad arkaysaa ninku si kasto u go'aan adagaya nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiraahday ma ra'aytu min naqisati aqlin wa diin adhaba min dhi lubbin min ihdakun ma arag buu yiri waa diintooda uu naaqis yahay iyo yaani aqligooda oo la tagi ninka aqliga u saaxiibka ah ee go'aanka u saaxiibka ninka si walba go'aan u leeyahay waxa laga yaabaa dumarka qaar inay jiitaan go'aankiisa oo ta'thir iyo saameyn ay ku yeeshaan Imraan ibn Hitaan nin muhaddith ah oo sunniya markii dambe wuxuu noqday khariji khawaarijtu kamid noqday waxaana sabab u ahaa gabar inuu khariji noqdo gabar sabab u ahay gabar ay qaraabo ahaayeen oo kharijiyada oo qurxoonay ayuu yiri waa guursanaya markaas la yiraahdo gabadhan ma fiicna aqeeda ahaan fikirkii khawaarijta aaminsan tahay iska dhaaf ma wuxuu yiri inaan soo hanuuniyaan rabaa waan soo jiidaya waa guursaday meeshuu
soo jiidan lahaa ayadii jiiday markaasuu khaariji noqda asna khawaarijtii ku biiray waa ninkii aanay ninkii dilay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ninkii gabay ku amaanay waana laga sheegay Allahu a'lam gabadhu waxa leeyahay qurux badnayd asigana waxa leeyahay waa fool xuma nin qurxoon ma ahayn markaasuu wuxuu ku yiri waxaan ilaahay ka rajaynayaa shukriga aan ilaahay uga shukrinayo inuu adiga ka siiyay maadaama gabar qurxoon aad tahay shukrigaas inaan janno ku galo ayaan rajaynayaa oo ilaahay uga shukriyo nicmadaas markaasuu wuxuu ugu jawaabtay anigana waxaan rajaynayaa sabarkii aan sabray oo fool xumadaada ku sabray inuu ilaahay janno igu galiyo rajaynayaa oo muddo fool xumadaadan u sabrayo oo dul qaadanay ala kulli xaal ninkii khaariji buu noqday gabadhaas dartay qofka marka inuu diinkiisa ilaashado oo haddii aad dareento waxaan inay diinkaaga saameyn ku yeelanayaan inaad ka fogaato qof walba lama waafajiyo qofka ilaahay waafajiyo oo qof ilaahay khayr la doono diinkaaga ilaali wax alla wixii dhaawac u keeni kara iska ilaali meel walba ka soo gali karaan iska xir waxyaabo waxa jira wasaa'il ah oo sabab kugu noqon karo fitnada iska xir ilaahay dartii subhanahu wa ta'ala uga tag wixii diinkaaga dhaawac u keenayo ama saameyn ku yeelanayo ama hadal ha noqdo ama ficil ha ahaado diinta islaamkana wixii qofka muslimka u sababayo fitna albaabadeeda way ka xir walidaalika eegmada nadarada xukunkeeda waa maxay inaad fiiriso waxaan ku banaanay sida gabar ajnabiyada mesela wa xaraam wixii fajaa oo kadisa waa inaadan mar labaad u noqon aragaaga waa inaad la qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum mu'miniinta waxaad ku tiraahdaa aragyadooda ha laabaan buu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala furuujtoodana ha xifdiyaan wixii xaraam ah furuujtooda ha ka dhowraan sida ku dheh mu'miniinta la khitaabayo annagu kamid aan nahay sooma waa inaan marka amarka ilaahay qaadano subhanahu wa ta'ala indhaha wixii muharramaada laga ilaaliyo qofka uu haduu sikadiisa ishiis ugu dhacdo oo hoos fiiriyo soosan mar labaad ugu dhicin ama ugu laaban wixii xaraamta